السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داودياشنا قيمها بدن كسر دوادة مركلة إيه برنامج كتضبط كان إيه تركيا تضبط كان برنامج كوحان قادر نيجي دونا برنامج أنا وما قدرناي بروح حقوق ده كودنا حقوق ده كريستها بالشدة الصوماليات دلكن تركيا كل قن وحيواجهيان مشكلة ده بدن وهريان مشكلة ده جوري كرينتا وشروع جونية وباهن وإن برتان وباهين برنامج كان وتلبحين يوعي قلن وحنا يقلقب قليا دكتور عويل محمود نور maamulka shirkadda Dalsoor oo ku taal magaalada Istanbul gaar ahaan magaalada Başakşehir taasoo bixiso tala bixin arrimaha sharciga iyo maalgashiga guryaha doctor soo dhaw marka koobaad aad baa ugu faraxsan barnaamijkan ay nagala qayb gashay ustaad Suleymaan aad baa u mahadsantahay aad baan ugu faraxsanahay barnaamijkan wacyigelinta iyo tala bixinta ah ay ugu martiqaaday inaan ka soo qayb galo aad baa ugu mahadsantahay marka koobaad doctor shirkadda Dalsoor maxay qabataa shirkaddan Dalsoor Consulting Services oo ku taala saa sheegtayba magaalada Istanbul gaar ahaan degmada Başakşehir waxay u adeegtaa bulshada Soomaaliyeed waxayna qabataa waxa ugu horeeya inay wacyigelin iyo talo bixin ka siiso Soomaalida arrimaha maalgashiga guryaha iyo ganacsiga iyo kireynta guryaha iyo sharciyadaba intaba waxaanu ka siinaa dadka talo bixin ku saabsan sida ugu wanaagsan oo arrimahaas ay Turkiga ugu hirgelin karaan aad baa u mahadsantahay maxay tahay muhiimadda ay leedahay inay ilaaliyaan bulshada sharciga dalka Turkiga san programkan ba ugu magac dartay waxa weeye tala bixin iyo wacyigelin ku saabsan sida Turkidu guryaha Soomaalida u kireysato marka ugu horeynta waxaan rabnaa inaan hordhac ahaan bixino hordhacaas oo ah dabcan Turkigu waa dal aad noo soo dhaweeyay Soomaali hadaan nahay dad badan oo Soomaali ay ku nooshahay waxa laga maarmaana saas oo ay tahay inaan dalka Turkiga sharcigiisa ilaalino haday noqoto waxyaalaha ay qiimaha u yeelaan sida calankooda dadkooda u soo halgamay culture-kooda waxyaalahaas oo dhan inaanu sensitive ku yihiin in la qiimeeyo oo maxaa la jiray aan ka foojignaano inaan wax u geysano aad bay muhiim u tahay sidoo kale luqadda inaan barano maadaama Turkiga ku noolnahay aad bay muhiim u tahay waxay ka caawinaysaa inaad bulshada dhex gashid dadkii ganacsi la samaysid aad isfahantiin si aad mujtamaca ugu noolaatid mustaqbalka fog waxaad u baahan tahay dhaqanka iyo inaad baratid iyo luqadda dalkan marka Soomaalida waxyaalaha ugu muhiimsan oo aan u sheegi lahaa oo ku saabsan dhanka Turkiga dhaqankiisa waxa weeye waxyaalaha Turkidu ay jecel yihiin qofka ajnabiga ah inuu ixtiraamo waxa ugu horeeya calankooda marka waxaan markasta bulshada u sheegnaa inay dhaqanka Turkiga bartaan intiisa wanaagsan ka qaataan inta kalena dadka ku ixtiraamaan aad weyn arintan barnaamijkan oo ugu magac darnay inay tala bixin iyo xuquuqdooda inay ogaadaan bulshada ay aad muhiim u tahay bulshada Soomaaliyeed dalka Turkiga ku dhaqan mashaakil aad u tira badan bay waajahayaan oo ugu horeyso arinta guryaha xuquuq badan ay leeyihiin oo san ogeyn oo laga yaabo luqadii inay qayb ka tahay laga yaabo cid wacyi gelisa inaysan helin waana kaaga mahad celinayna mar labaad mar saddexaad inaad waqtiga qayb kamid ah siisay si aad bulshada oo la wadaagto su'aasha aan rabo inaan ku weydiiyo aad dadka isku weydiinayaan milkiilaha guriga goormo xaq u leeyahay inuu iga saaro waa mahadsantahay su'aashaas aad bay muhiim tahay programkan runtii waxaan u codsaday inaan qabano waxa ugu horeysa intaanu shaqaynaynay oo company-gan ka shaqaynayay Soomaali badan ayaan la kulmay waxaan dareemay dhibaatada ugu weyn ee Soomaalida ka haysata Istanbul ama Turkiga inay tahay arrimaha la xiriira qaabka guriga loo kireysto shuruucda qawaaniinta Turkiga qaabkay u dhigan yihiin iyo in la fahansiiyo bulshada Soomaaliyeed su'aasha ay soo weydiisay hadaan ugu soo laabto dib in badan waxa dhacda Soomaalida in guryaha laga saaro si khaldan looga saaro marka su'aasha ay weydiisay oo ah goormuu xaq u leeyahay qofka guriga iska leh inuu iga saaro wuxuu xaq u leeyahay inuu ka saaro marka la helo shuruudahan soo socda marka ugu horeysa mulkiilaha waxa uu gaar ka saari karaa in uu soo cadeeyo maxkamad ka soo cadeeyo inuu asaga guriga u baahan yahay ama familkiisa u baahan yihiin ama qof asaga familkiisa sida hooyadiisa aabihiisa iyo caruurtiisa ay u baahan yihiin inuu maxkamad ka soo cadeeyo taas waa midda koobaad tan labaad in aad kirada bixin weydid ilaa muddo 2 bilood ah asaga oo notarka ka soo qoranaya waraaq
oo cadaynaya inaad kirada bixin weyday kadib maxkamad u gudbinaya codsigaas sidoo kale wuxuu kaa saari karaa haddii aad guriga lagu sameynayo dib u habeyn weyn oo aan la deganaan karin sidoo kale guriga wuxuu kaa saari karaa haddii mulkiilaha uu dhinto qofka guriga dhaxalkiisa iskale ayaa kaa saari karaa isagoo oo maxkamad u maraya sidoo kale haddii ay caddaato in aad ku xadgudubtay ama aysan kula noolaan karin bulshada aad la nooshahay oo deriskaaga ah oo maxkamad soo caddayso taasna guriga uu kaaga saari karaa sidoo kale waxaa jirta waraaq tahliya taahutnaameysi la yiraahdo oo aan rabo inaan bulshada tuso haddii markaad guriga kiraysanaysay aad waraaqdaas saxiixdid waraaqdaas waxaa ku qoran adreska guriga qofka kiraystay qofka iska leh iyo contractiga gurigaas oo halka sana normally markay dhamaato inaad uga bixi doontid waraaqdaas haddii aad saxiixday waraaqdaas contractiga ma aha laakiin waraaqad kale ma ahan waa waraaq inta badan lagu lifaaqo oo dadka loo hoosgeliyo haddii aad waraaqdaas saxiixday marka guri aad contractiga saxiixaysay waxaad ka bixi doontaa hal sano markay ka dhamaato waraaqdaas waa taas weeye waxaa la yiraahdaa tahliya taahutnaameysi baa la yiraahdaa waa macnaha guri iga bax oo advance ah ama si horumarisa lagu usii saxiixday weeye ilaa waraaqda Soomaalidaas inay iska ilaaliyaan waa muhiim markay guriga kiraysanayaan kirada ayaa lagu lamaanaa kirada page kamid ah ma aha normally kirada 3 page weeye si sharciga ah waraaqdaas maxay cadeynaysaa mar labaad ku celiso waxay cadeynaysaa waxa inaad ka bixi doontid gurigaan si shuruud la'aan ah markii contractiga hal sano ay ku dhamaato taasna waxay meesha ka saaraysaa xuquuq badan oo aad lahayd ka saaraysaa meesha marka arintaas aad ay muhiim tahay in la iska ilaaliyo marka guriga kiraysanaysid inaad waraaqdaas saxiixinin sharci ma ahan waa inta badan dadka guryaha iskale ayaa waxay doonayaan inay xuquuqdooda say u ilaalsadaan oo qofka guriga kiraystay xuquuqdooda uga ilaalsadaan inay hadhow aysan muran la'aan maxkamad la'aan guriga uga saari karaan qofka bay awood siinaysaa marka waraaqdaas sharci ma inaad saxiixid contractina kama ahan haddaa waraaqdaas saxiixid hal sano kadib markuu ka dhamaato contract waa ka bixi kartaa gurigaas marka waxyaalahaas ba guriga laga saari karaa ugu muhiimsan su'aasha isweydiinay oo imaan karta waxay tahay haddii muddada kiradu dhamaato muddadii kirada uu saxiixay oo contract halka sano ah mulkiilaha guriga ma iga saari karaa guriga dabcan saa ognahay horta kirada muddadeedu waa hal sano contract inta lagu qoro laakiin hal sano sanad kasta le automatic way cusboonaanaysaa yani hal sano markay ku dhamaato qofka guriga iskale kaama saari karo wuxuu kaaga saari karaa oo kaliya shuruudihii aan soo sheegnay markii la helo oo ahaa in uu guriga u baahan yahay oo maxkamad soo cadayso in guriga aad kiraysa bixin weydo in dariska inta ka dacwadaan maxkamad ay arintu gaarto maxkamad ka saarto in guriga la hagaajinayo in qofkii iska lahaa uu dhinto maxkamad uu tago waxyaalahaas kaaga saari karaa laakiin muddada halka sano ee contractiga guriga haday dhamaato xaq uma laha inuu ka saaro laakiin adigu waxa xaq u leedahay inaad contractiga ka baxdid ayaad xaq u leedahay 10 sano muddo ah ayaad xaq u leedahay guri aad kiraysatay inaad deganaatid haddii aad si sifo sharci ku deganaatay lagama saari karo arinta Soomaalida wax badan kama ogo waxana kamid ahba inaysan dadku aysan information macluumaad badan aysan keenin arintan sababtoo ah qofka guriga Soomaali badan waxa lagu sameeyaa in guri iga baxdo xitaa soo sanadkii dhamaan depositka aan loo soo celin lacagtu dhiga aan loo soo celin lacag ka gashay xuquuqdan dhan waxaad u moodaa dadka inay ka qarsoon tahay waana muhiim inay arinta kale oo la isweydiin karo waxay tahay oo meesha ku jirto hadii aan 10 sano gurigan iska deganaan karo mulkiilaha guriga goormu igu siyaadin karaa lacagta mulkiilaha gurigu wuxuu kugu siyaadin karaa lacagta hal sano markay ka soo wareegto contractii ay saxiixateen dabcan qaanuunka Turkiga ka hadlaya kirada iyo qofka xaq iska leh wuxuu ku yaalaa Borjilar qaanuun sharciga la yiraahdo oo article-ka 32 ee qaanuunka Turkiga ku qoran wuxuuna ka hadlayaa xuquuqda qofka guriga kiraystay waxaan arkaynaa la kulanay Soomaali badan oo 6 bilood kasta lacagta guriga lagu siyaadiyo taasna waa sharci darro qofka guriga iska leh wuxuu kugu siyaadin karaa hal sano markii ay dhamaato contractiga saxiixteen kadib wuxuuna kugu siyaadin karaa rate-ka ay soo saarto hay'adda la yiraahdo Tüketici Fiyat Index price consumer price index shirkadda soo saarto statistics-ka Turkiga qiimaha ay soo sheegto oo percentage ah sanadkan tusaale ahaan bishaan hadda aan joogno waa 19% waxa dhacda Soomaali badan in 50% lacag lagu siyaadiyo kirada guriga hal sano kadib xitaa taasna waa sharci darro qofka Soomaaliga oo guriga kiraystay waxa laga maarmaana inuu xuquuqda garanayo 19% ka badan kuma siyaadin karo marka hadda aan fiirino rate-ka intuu marayo
sanad kasta way isbedeshaa sanadka waxaad fiirinaysaa inta kugu ziyaadi karta waxaad ka ogaan kartaa website-ka internetka adoo ama waxaad la xiriiri kartaa qofka guriga agency guriga aad ka kireysatay laakiin waxaa dhacda boqolkiiba boqol guri lagu ziyaadiyo aysan ka warqabin oo moodi in xaq uu leeyahay mana kugu ziyaadi kara intaas waana sanadle ziyaadadu 6 bilood kasta ma ahan haddii gurigii la iibiyo xaaladdu waa isbedesho guriga waa la iibiyo tusaale ahaan ma iga saari karaa guriga mulkiilaha cusub mulkiilaha cusub guriga uu ka saari karaa haddii la iibiyo wuxuuna kaaga saari karaa asagoo wadada sharciga soo mara taasoo ugu horeyso inuu notarka tago oo ka soo qoro waraaq uu dhahayo gurigayga waa iibsaday waxaa iga bax kadib markii waraaqdaas ay ku timaado waxaa laga maarmaana in uu ku siiyo ilaa 6 bilood muddo 6 bilood uu ku siinaya muddo 6 bilood hadaa uga bixi weyd maxkamad ayuu kula tiigsan karaa laakiin qofka guriga iibsaday oo mulkiilaha cusub ah guriga uu ka saari karaa asagoo wadada sharciga maraya laakiin waa inuu muddo ilaa 6 bilood uu ku siiyaa waqti ah waa inuu ilaa muddo 6 bilood ku siiyaa okay kristuhu arrintan aad bay muhiim u tahay laana Soomaalida in badan bay sameeyaan laakiin waxa laga yaabaa si sharci darro inay u suubiyaan kristuhu ma ku wareejin karaa qof kale guriga arrintan Soomaali aad bay u sameeysaa ayaga waliba ka fasax qaadin qof guriga iska laha arrintaasna dhibaato badan ay mujtamaca Soomaaliyeed Istanbul ama Turkiga degan guud ahaan u keentay dadka arrintaas sameeya kristuhu guriga qof kale kuma wareejin karo ilaa inuu ka helo maahane aqbalaad qoraal ah qofka guriga iska leh okay ma ka bixi karaa guriga kontaragi ama heshiiskii guriga aan ku galay oo waqti ka dhiman yahay dabcan qaanuunka Turkigu xaq u badan wuxuu siiyaa qofka guriga kireysta qofka guriga iska leh iyo qofka guriga kireystay qaanuunka Turkigu wuxuu xaq badan siiyaa maxaan niri qofka guriga kireystay marka tusaale ahaan haddii aad sanad guriga kireysatid oo aad dalka iskaga laabanaysid sida dad badan oo Soomaaliya ku dhacdaba waad ka bixi kartaa contractigi oo halkii aan sano oo dhamaanin laakiin waxa laga doonayaa inaad 2 bilood ka hor si sheegtid adoo notarka waraaq soo qoraya sidoo kale waxa laga rabaa inaad kirada guriga si bixisid ilaa inta la kireysanayo wixii macquul ah ilaa 2 bilood waa inaad si bixisaa guriga kiradiisa arrintan ama su'aashan aad bay muhiim u tahay aan ku weydiinayo doctor Soomaalidana qayb badan waa laga soo cawday walow kulligood aysan wadahayn haddii darisku iga soo cawdo maxaa ila gudboon runtii arrintan aad bay bulshada Soomaaliyeed ugu shaacsan tahay oo shaac ka tahay arrintaasna dhibaato badan bay keentay isfahan waa daran bay keentay marka dabcan nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu noo sheegay darisku inuu xaq leeyahay xaq darisku uu leeyahay nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam darmay waa sayid rasuulku sallallahu alayhi wasallam yiri wallahi la yu'min wallahi la yu'min wallahi la yu'min asxaabtu ay tiri qiila ma ya rasuul allah wa rasuulku sallallahu alayhi wasallam uu yiraahday man la ya'man jaaruhu bawaa'iquhu qofka uusan ka alladhi la ya'man jaaruhu bawaa'iquhu qofka dariskiisa uu ka amaan heli waayay dhibaatadiisa marka daris wanaagu diintan amraysa dhaqankeena suban baan amraya Turkidana isku dhaqan ma nihin laakiin aad bay runtii inta badan u ixtiraamaan dariska haddii ay dhacdo dariska inaad isku dhacdiin darisku xaq uma lahan inuu ku handado guriga ka saaro albaabka kugu soo garaaco stress kugu furo xaq uma lahan haddii asaas dhacdo waxa laga maarmaana inaad maamulka xaafadaas ama booliska ama guriga qofka iska lahaa aad aadid laakiin waxa muhiim ah qofku inuusan Soomaaliga arrintaas laga soo dacweynayo haddii wax ka jirto inuu wax ka qabto oo sidii uu arrintaas ku baabi'in lahaa uu aado uu sameeyo oo guriga iskaga bixin inta badan waxa dhacda haddii dariska ay dhowr jeer ay kugu soo garaacaan qofka Soomaaliga waxa shayga saddexaad uu sameeyo waa maxay ugu horeeya inuu guriga kala raadsado meeshuu xalin lahaa dhibaatada laga soo dacwoonayo inta badan waxaan nahay bulsho familkeena oo badan yahay 5 qof 7 qof marka waxa laga maarmaan arrintaas in xalkeeda la helo oo dadka dariska ah xuquuqda aad loo ilaaliyo waa muhiim aad ba u mahadsantahay doctor talooyinkaas waxaan geli doonaa qaybta dambe qaar ka mid ah sida khaldan oo Soomaalida guriyaha looga saaro laakiin intaan u guda galin daawadayaal waxaan geli doonaa dhextaal kooban oo aan isku soo noqonaynaa si aad wax badan uga ogaato Turkiga la soco baraha kala duwan ee Miss Soomaaliya
دكتور aad baa u mahadsantahay soo noqosho wanaagsan daawadayaal maxaad kula talinaysaa kireystaha guriga meeshan waxaan ku soo qoray qodobo aan aaminsanahay aad inay muhiim yihiin oo Soomaalida aad ugu shaacsan oo ah waxyaalaha qaldan ee markay guri kireysanayaan ama ay iibsanayaanba ay sameeyaan tan ugu horeysa waxa weeye inay iska ilaaliyaan Soomaalidu guri inay kireystaan ayagoo aan contract saxiixinin meeshaan dal sharci ka jira weeye saad dalalka inta badan Soomaaliya ka timaada Yurub oo kale qofka hadii uusan contract guri kireystay aadan maxaa la jiray haysanin guriga sharci darra ku degan tahay marka ilaa hadii aad guri degan tahay oo kireysatid oo lacag bixsid contract ina heshid waa muhiim contractigana khasab maahan sanad kasta ina cusboonaysid halka sano ugu horeeya kugu filan 10 sanana waa gurigaas waa degaan kartaa qof guri wuxuu kaga saari karaa san sheegay arrimii aan soo hore u soo xubshnay sanadka haduu dhamaado automatic iga bax waxa la yiraahdo ma jirto sidoo kale waxyaalaha muhiimka ah inay iska ilaaliyaan ay tahay inay lacagta kirada gurigaas ama iibka ay guriga ku iibsanayaan inaysan cash ku bixinin oo ay bangi u mariyaan sababta Turkiga qaanuunka marka la fiiriyo wixii 100 TL ama Turkish lira ama $10 ka badan waxa la doonayaa qofka inuu ku bixiyo account marka waxa arkaysa Soomaali badan oo guri iibsanaysa ama guri kireysanaysa oo bishii ama lacagta guriga ku iibsanayeen cash u bixinaya arintaas dhibaato weyn bay keeni kartaa hadii hadhow la isqabsado qofka cadeyn ma hayo inuu lacagtaas bixiyay awadeed waxaan naloo keenay xafiiska dad Soomaaliyeed oo guri $300,000 ku iibsaday oo $200,000 laga inkiray ayaan maqalnay arintaas runtii Istanbul bay ka dhacday sababtoo ah cash ayuu ku siiyay rasiidna ma haysanin marka arintaas ilaa aad ay muhiim tahay in la iska ilaaliyo Turkidu ma wada xumaa laakiin dad ka faa'iideysta ajaanibta ayaa jira marka waxa ka ilaalin karo kaliya waa maxay waa inaan sharciga aad marto aad iska ilaaliso sidoo kale markaad guri kireysatid ama iibsatid waxa laga maarmaana inaad ku soo qoratid biiliska xaafadda sida korontada biyaha gaaska magacaaga tani waxay ku saali doontaa hadhow hadii maxkamad ama isqabsi ay noqoto ama contract ay ka lumo inaad cadeyn haysatid guriga inaad kireysatay waxyaalaha ku cadeyn kartid waxa kamid ah inaad haysatid biiliska xaafadda mid kamid ah aad ku qoran tahay magaca ku qoran yahay kamid tahay arinta arbina ku weydiiyo guriga aan kireystay haduu iga dalbado inaan ka baxo waa iibinaya iga baxdo idho arimaha tusaale ahaan Soomaalida waxyaalaha ugu badan guriga looga saaro waxa kamid ah guriga ana u baahan iga bax ta oo af kaliya ah haduu u baahan yahay inuu sharci ahaan soo cadeeyo inuu yiraahdo guriga waan iibinaya iga bax hadii guriga iibinayo macnaheedu inaan ka bax ma ahan waxba iskama gelin qofka guriga iskale cusub ayaa processka sharciga maraya oo ka saari kara laakiin waxyaalaha aad ugu fudud oo Soomaalida guriga looga saaray kamid tahay ana guriga baan iga bax ana waa iibinaya iga bax waxyaalahaas waxaan dadka Soomaalida kula talina inay siiyeen waa hadal af ah oo maxaa la jiray aan waxba ka jirin qaanuunkan aan meel laga taxakumo waxa kale doctor jirto in mulkiilaha guriga uu soo doono lacagta ugu siyaadiyo ajaanibta siiba waayadan markii mushkilaadka Turkish lirada ay hoos u dhacday in lacagtu doono ugu siyaadinaya Soomaalida ma oga markii inay dawladda jaangoysay oo si qaanuunsan uu kugu kordhin karo oo san wax walba kugu kordhin karin laakiin saasi ka duwan waxay doonaan bay sameeyaan aad iyo aad way dhacdaa boqolkiiba dadka lagu siyaadiyay lacagta xitaa waxaan aragnay hal sano oo dhammaan dadka lagu siyaadiyay oo xataa contract aan sharci darro qofka laga saxiixo Soomaaliga waxa laga maarmaana inuu qofka Soomaaliga garanayo sanad kasta dawladda ayaa soo jaangoysay inta lagu siyaadin karo inta ka badan qofku kuma siyaadin karo hadii uu kugu siyaadin hasiinin inta uu xaq u leeyahay akoonkiisa ugu dir hadii maxkamad la isla tagana adiga ayaa ka xaq leh waxa macquul inay ku handadaan police ban ku diray qofkii luqadii ma yaqaano maxaa la jiray waxyaabaha sababay waxa kamid inuusan luqadii aqoon aysan isfahmaynin laga yaabo inuu ku handado inuu police u diraayo arrimaha iyaga maxaad ka tala sameyn kartaa dabcan Soomaaliyeedna waxa moodaa aad inaan booliska uga baqno hadii boolis ama maxkamad la maqlo waxa moodaa qofka Soomaaliga inuu xuquuqdiisa dhan ka tanaasuli karo arintaasna waa arin xadaariya ma ahan boolisku dadka xuquuqda ay leeyihiin kama qaado maxkamaduna dadka xuquuqda iskale ayay garab taagan tahay marka hadii qofku boolis guri iskale oo ku dhaho boolis ayaan ku yeeray iga bixinin wax dhibaato ma lahan uu mari karaa maxkamaddu ku dacweyn karaa markasta qof kasta wuxuu helayaa xaq u leeyahay laakiin waxyaalahaas waxa weeye waxyaalaha Soomaalida lagu handado inay jilaq u siiyaan ma ahan
waxaa kaloo muhiim ah oo sheegtay warqad ku lifaaqan oo inuusan saxiixin ay tahay magaceedii waad noogu soo celiso tahliyo waraaqdaas waxaa la yidhahdaa tahliya taahud naameysi waa waraaq cadaynaysa inaad guriga ka bixi doontid shardi la-aan muddada contractiga kuu dhammaato kadib oo 1 sano ah adigoo dacwoonin xuquuqdaadii dhan oo ay ku siisay qaanuunka Turkiga uu ku siiyey kirista ahaan aad ka tanaasuleysid adigoo dacwoonin haddii aad maxkamad aadidna xitaa adigu bixin doontid wixii kharash ku baxa waraaqdaas aad ay riski u tahay inta badan ajeensiyada guryaha Soomaalida ay ka kireystaan way u hoosgeliyaan waan uga digaynaa waxaa muhiim ah Soomaalidu markay contractiga guriga saxiixayaan ay iska akhriyaan waxaa jira waxyaalo qeyr sharci ah oo loogu qoro oo hadhow maxkamadii ay noqoto looga gar lahaan karo marka contractigu waa wax diyaarsan oo qaanuunka Turkiga oo la soo tarjumay ama toos la soo waariday oo lagu soo qoray contractiga weeye contractigu qofka agensiga ma sameeynin qofka guriga iskala ma sameeynin waa qaanuunka Turkiga ayaa qoraya shuruudaha ku qoran in wax laga bedelo ma ahan waxyaalaha muhiimka ah oo shakhsiga information shakhsiga aan ahayn in wax laga bedelo ma ahan marka waraaqdaas in la iska ilaaliyo waa very important haddii aad saxidid macnaheedu waxa weeye 1 sano kadib qofkaas guriga uu ka saari karaa si sharci ah ka saari karaa laakiin waxa laga maarmaan waraaqdaas si ay u ansaxdo in notariga la soo marsiiyo haddii aadan qiranin haddii aad u aqirsan tahay inaad waraaqda saxiixday waa valid way shaqaynaysaa laakiin haddii aad inkirsan tahay waxaa khasab ah in waraaqdaas notariga markii hore la soo marsiiyo qaabka ugu wanaagsan oo qofka xaqiisa ku ilaalsan karana waxa weeye haddii ay suurtagal tahay contractiga guriga notary in la marsiiyo aad ay muhiim tahay oo la sharciyeeyo دكتورة برنامجكان aad baan horta ka mid celinaa marka koobaad leena aad buu muhiim u yahay yani xitaa macluumaad aan aad ugu geyn ba iga soo baxay dad badanna way ka faa'iideysan doonaan ma isleedahay in ay dadku qabsadaan sharci yaqaan inay muhiim tahay oo muxaami ay arintan oo la tiigsadaan runtii haddii la yahay bulsho meel lagu nool haddaan nahay bulsho meel ku nool dal shisheeye oo aan luqadiisa aan garanayn sharcigiisa aan garanayn dhaqankiisa ay nagu adag tahay isdhexgalkii uu yaryahay Soomaalidiina meeshan ay soo degtay ahanti ku leedahay ay guriga ka iibsadaan ay iskuulaad ka bartaan jaamacada ka dhigtaan aan aad ugu badanahay waxa laga maarmaana in aanu isku duubanahay oo aanu samaysano hay'ad ama lawyer community kasta oo meel ku nool tusaale ahaan xaafad ku nool inay qof lawyer ah oo ay isfahmayaan oo Turkish ah oo sharciga yaqaan inay qabsadaan aad ay muhiim tahay sababtoo taas waxay ka caawin doontaa hadhow haddii isqabsi u yimaado hantidaada ku saabsan haddii hantidaada leedahay lagu qabsado haddii aad qof Turkiga istagaashaan haddii ay dhacdo in lagu xadgudbo haddii ay dhacdo guriga is sharci darro lagaga saaro waxyaalahaas oo dhan waxay ka saaciidi kartaa qof lawyer inaad xiran leedahay oo aad isku xirantihiin oo lawyerkaas u qorantihiin oo markasta loo mushkilad ay la soo waajahdo aad la tashataan aad ay muhiim tahay taas haddii aysan jirinin waxa dhici karta qofka Soomaaliya xaqiisa in la dudsiyo xuquuq badan oo heli karayna oo ka tanaasulo waxa laga maarmaana qofka Soomaalidu mal sanad kasta meel baan u guurnaa waxa xasuustaa dhowr sano ka hor Qaahira laga soo guuray Kenya laga soo guuray Turkigana waa ka guuri doonaa haddii aanan qawaaniinta sabaranin luqadiisa baranin aanan xaqeena ku ilaalsan karin waa muhiim inaanu garanayno xuquuqda aan leenahay waxyaalaha dadka ku hayn kara dal ay markay u soo guuraan waxa ugu muhiimsan inay dhaqankooda iyo luqadooda ay fahansan yihiin iyo sharcigooda waliba haddaan fahmi weyno macnaheedu waxa weeye laba mid ah dhacaysa inaan anakoo ku dulman aan ku noolaano iyo inaanu ka guurno oo iskaga tagno taasna si looga hortago waxa laga maarmaana inaan xuquuqdeena barano luqadda dalka barano aan isku dayno dalka aan la qabsano sababtoo ah dalkan mustaqbal badan ay Soomaalidu ka leedahay hanti ay gashanay waxaanu ka baranaa arintaasaan ilaah aad buu mas doctor haddii aan raacsado waxa jiro arinta iqaamadaha in manaatiqda qaarkood oo kale aan la degi karin ay dawladda soo saartay arinta maxaa ka ogtiin Sanyurto Faatix oo kaleeto in dawladda tiri iqaamo kuma soo bixi karto dad badan guri oo kireysnaayeen arintan qaanuunkan waxaa la soo saaray 1 sano ka hor saan filayo wuxuu dhigayaa magaalooyinka xaafadaha ugu zaxmadda badan ee Istanbul si looga yeerayo ajaanibta dadka cusub markaas imaanaya inaysan sharci ku heli karin oo la doonayo in magaalooyin kale ama xaafado kale u wareegaan taasna waxay saameynaysaa oo kaliya qofka cusub kaliya oo markaas sanadkii ugu horeysay ka xareysanaya sharci meeshaas
waana xaafadda meesha ayada ka xareysanay haddii uu tusaalahan waxaa dhacday inuu horey u deganaa oo maxaa la dhihi jiray laakiin uusan qadida nufuuska oo lasoo kordhiyey ama in ciwaankiisii uu ku suugo meesha iyada hadduu horey u deganaa waxaa laga maarmaana inuu dowladda hoose ee xaafaddaas iska soo qoro soomaalidana waxyaalaha ugu badan oo shuruucda loogu diiday Turkiga waxaa kamid ah inaysan nufuus ama aysan ka qornayn xaafadda ay degan yihiin dowladda hoose u qornayn arrimahaas aad ayay soomaalida sharciga loogu diidaa waxaa laga maarmaana haddii qofku iqaamo leeyahay ama sharci leeyahay inuu iska qoro deegaanka uu degan yahay dowladda hoose si mustaqbalka uu sharci u helo haddii uusan haysanin waa adag tahay inaad mustaqbalka sharci heshid دكتور maadaama arrimahan ka shaqeysaan ma jirtaa magaalada Istanbul hadda ku noolnahay magaalo aad weyn waayo bulshada waxay ku kala nooshahay meelo badan bay ku kala tagsan tahay oo u badnaata asan yurto kamid ah dad badan baa soo dagayo wali soo dagayo oo macluumaad badan kama hayaan in dawladii ay kamid tahay meelaha ay ka yareynayaan oo aan iqaamadaba lagu qaadan karin saasoo dad badan oo degay waxaa jira qaraar kadib markuu soo baxay iqaamadina dib ku noqotay oo meelo kale inay isku sajilaan si ay ayagu guriga ay deganaan aan ku qaadan karin iqaamad ama deganaanshaha aan ku qaadan karin ma jirtaa xaafado si gooni aad kula talinaysa inay ay Soomaalida degto ay ka helayaan servicekii adeegyadiiba ay ka wada helayaan dabcan Istanbul magaalo weyn weeye Soomaaliduna qaybaheeda kala duwan oo dhan way ku wada nool yihiin waxay ku xiran tahay qofka sababta u yimaado Turkiga waxaa jira tusaalahan magaalada degmada aan deganahay Başakşehir iskuulaadkii baa ku yaala madrasooyinka quraanka ku yaala Soomaalida ganacsi bay ku leedahay waa degmo waxa way aad u kobcaysa degmooyinkaas oo kale weydii karaan xaafadaha dabcan kale oo Istanbul nawaaxigeedana weydii karaan afjilaar baa kamida waxa kamida qaybta Asia oo ajaanibta ku yartahay runtii oo kan raqiisan baa qataa qaybaha kale nolol ahaan iyo deegaan ahaanba marka waxa laga maarmaana qofka intuusan imaanin Turkiga inuu xog raadiyo oo asagoo xogtii dalka wax faahfaahsan inuu yimaado hasa ayaa muhiim laakiin waxaan malaysaa Başakşehir aan ku darsado xogaa kaftana inay tahay level ama qaali yara tahay oo dadka dhan wada day karin aad iyo aad runtii waa jirta arintaas laakiin waa degmo aad u wanaagsan oo bulshada Soomaaliyeed dibadda ka soo laabatay u fiican maadaama ay tahay magaalo ama degmo muxaafid ah oo dadka degan ay yihiin dad ajaanibta jecel aan meel khamro iyo xumaan oo dhan aan lahayn oo xogaa amoodid dal carabeed inaad joogtidba boqolkiiba konton dadka ku nool laana mar walba oo tadayunka ama dhinaca diinta loo leexdo waxa yaraato cunsuriyadii baa soo yaraato gaabkii cunsuriyada meesha ka baxo konton boqolkiiba dadka degmadaas ku nool waa ajaanib weeye carabi u badan yihiin Soomaalidu way ku badan tahay marka waa meel aad runtii deegaan ahaan ugu fiican school international oo huda American school la yiraahdo ayaa ku yaala oo Soomaali ay maamusho Soomaali badan baan dhigata huda school بالمناسبة Soomaali baa maamusho dad badan oo Soomaaliyeedna way dhigtaan waana level aad iyo aad xaafadaas uu ku yaala waa iskuulka kaliya oo Soomaali ay ku leedahay magaalada Istanbul Soomaali badan oo ilaa 200 ka badan baan dhigata runtii aad ay uga faa'iideysteen marka xaafadaas waa aaminsanahay in Soomaaliya ay timaado ay insha Allah warajeynina alhuda school inaan marti qaadno si bulshada adeeg ay u fidiyaan ay wax badan uga ogaadaan dansoor aad baan ugu mahadcelinaynaa maamulayaasheeda iyo adeeg bixiyadeeda sida ay u soo diyaariyeen barnaamijkan qiimaha badan صراحة aad baynu uga faa'iideysanay bulshadana way ka wada faa'iideysan doonaan tan iyo intaan barnaamij kale ka galayno doctor aad baan kaga mahadcelinaynaa marka hore inaad waqti ina siisay iyo dansoor baan u mahadcelinaynaa daawadayaal waxaan rajaynayaa inaad ka faa'iideysteen barnaamijkan waxaan idin leeyahay tan iyo intaan barnaamij kale ka gaarayno sidaas iyo nabadgelyo